munaasabad ay soo qaban qaabiyeen ururka isboortiga Puntland ee UK oo lagu soo dhaweynayay Dr. Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacade iyo agaasimaha guud ee wasaaradda isboortiga Puntland mudane Tigana ayaa ka dhacday galbeedka London. munaasabadiina waxay u dhacday sida tan ku soo dhawaada xafladan aan ugu talagalnay inaan ku soo dhaweyno Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dr. Dhagacade oo nooga yimi wadankiisa hooyo Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka Puntland. Cabdiqaadir waa Dr. Dhagacade wax badan buu u qabtay Puntland wuxuu kaloo ku sii darsaday waa nin isboortiga isboortigana u ololaya maadaama aan nahay ururka horumarinta isboortiga Puntland waxaan u garanay inaan ku soo dhaweyno si wada jir ah annagoo u wada dhan rag iyo dumarba iyo jaaliyadaba inaan ku soo dhaweyno si gacmo furan ku soo dhawow Dr. Dhagacade. waftiga caafimaad ka socda waxaa hogaaminayay Dr. Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacade JMC iyo injineer Cabdiqaadir Cali oo loo yaqaan Faatax oo ka socda East Africa University jaamacadda. waxaan u qabanay meetingkan inaad warbixin siisaan sida ay yihiin isboortiga suuqayahay wadankii anaga wali ma aan tagin marka waxaan rabnaa sar Tigana oo isagana aan sugeynay adigaba labadiina waa inaan naga siisaan dhulka warbixin. aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh oo aad nagala soo qayb gasheen xafladan sharafta leh oo aan ku soo dhameynayno Cabdiqaadir Maxamed Jaamac Dhagacade oo ah doctor weyn oo aan aad iyo aad maartay u sugeynay inuu wadankan noogu yimaado. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay gaar ahaan jaamacadda East Africa University iyo Dr. Cabdiqaadir Maxamed Jaamac oo ahaa dadka ayagu inta badan u taagnaa dhismaha iyo waxyaabaha laga qabanayo wadankeeni. halkan waxaan u joogaa shaqooyin inaan u imaado maahe anigu waxaan ka tirsanahay dadkii Soomaaliya. waxaan marka hore u mahad celinayaa ururka horumarinta isboortiga Puntland oo barnaamijkan soo qaban qaabiyay Mustafa Suleyman Darwish Cabdikariin Cabdulla Shiille iyo Bashiir odaygeeniya Cabdiweli iyo dhalinyarada kale aad baan idinka mahad celinayaa iyo gabdhaha walaalaheenba aad baa u mahadsantihiin. meel kasta aad joogtiin waa idinkoo nala jooga haddii wax tarkiinni oo yahay mid lilaahiya oo meeshii wax aanu qabno la socon kara waxna ka tari kara waa idinkoo dhulkii nala jooga iyay ka mid tahay weliba dhulka aad joogtiin wax weyn baad ka soo qaban kadhiin oo noo keeni kadhiin annaga oo waxtar noo leh annaga haddii aad idinkoo wada jira aad waxda qabsatiin oo ra'yigiinna aad dadkan ula tagtiin oo wax ku waraysatiin idinkoo wada jira annagu nimankaan aragnay waa dad doonaya inay wax qabtaan waa dad doonaya dad maala inay helaan dantooday ka leeyihiin ha u moodinina inay iyaga kaliya annaga hadda noo soo kaceen danbay leeyihiin dantoodana way naga gaarahayaan at least aan wax ka qabsanno aan wax ka helno.